muuqaalkan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa sheekada nin la yiraahdo Richard McKinney oo ahaa ciidan hore oo Amerikaan ah. ninkan ayaa muslim nacaybka ka buuxday waxa ay gaaraysay heer uu qorsheynayay inuu sameeyo dhagar ay ku halaagmaan muslimiin gaarayso ugu yaraan waa sida uu qorsheynayay 200 oo qof. haddaba ninkan qorshihiisa iyo wax waliba oo uu damacsanaa ayaa waxay isku bedelaysaa qaab isaga iyo qof waliba ninkan garanayay una filanayn. waana waxa maanta aan rabo inaan muuqaalkan idinkula wadaago. soo dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نصعب شرفت بدنا سؤال هذا مركل يكسر هذا مقال كله ولكن صاحب كراس مانو سوي channel كا سيدو كله فيسبوك بيج كا هوسو برو. هذا بني كان شيء كذي سو حن كبلا بينا مركا اليرنمدي سا أما مركا أو أحد يقف اليرو مركا سو كرايو أو ربو إنه قان صدوا وحو مستقبل كراوي لها إنه سماه. وحيرين كان فيلم أياندا وذي فيلم كاسو رامبو. wuxuu yiri waxaan jeclaystay sida ninkan uu yahay qof xoogan taf ah laga cabsado maanta oo dhan taxbadaynayo dadka ay xishmeynayaan sida darteeda ayaanba go'aansaday uu yiri aniga waxaan rabaa inaan sameeyo sida darteeda waxa uu leeyahay marka waxaan ku biiray ciidanka. ninkan ayaa ciidanka marka uu ku biiray tababar kadib waxay noqotay in loo diro dagaal. Richard marka waxa uu ku sii balaartay uu hore ugu sii socday ciidanimadiisa waxaana jirto meelo badan uu ka soo dagaalamay oo ay kamid tahay koonfurta Mareykanka, Filibiin, Bariga Dhexe, sidoo kale xitaa ninkani waxa uu ka soo dagaalamay Soomaaliya. waxa uu leeyahay marka inta aan ciidanka ah waxyaabo badan oo aan dhibsan jiray way dhici jireen uu yiri laakiin waxa aan ugu nacbahay waxay ahaayeen marka aan arko caruur geeriyootay ama caruur dhimato la dilay. hase ahaatee wuxuu leeyahay dib ayaanu liqi jiray wax walbo aan dareemo xumaatay walbo aan dareemo ama wax walbo aan dhibsado sababtoo ah waxay ahayd in waajibaadkayga guto waxay ahayd in ciidankayga asxaabteyda iyo dadka aan wada shaqeyno aan meesha la joogo. garabkiisa ayaa waxa uu ka soo saaraya marka shaabad oo sidaad u jeedaan dhibcahaas ay ku yaalaan waxaana marka dhibcahani uu kala jeedaa ilinta ama ilmada. waxa uu leeyahay dhibic walbo oo garabkayga ku taalo dhibcahan yani sidaan isugu kooban waxay ka dhigan tahay dil aan xaqiijiyay. hase ahaatee wuxuu sii leeyahay 26 markii aan marayay kadib waan dhaafin waayay. meeshaas ayay ahayd meesha aan ku iri waan joojinayaa. waxa la ibaray uu leeyahay oo la igu tababaray ama dadkana ay yiraahdaan dadka ciidanka ah hawlahan iyo kale way qabtaan dad way dilaan wax la dili way arkaan way ka socdaan oo yani way si dhaafsiyaan way islaqsiyaan laakiin aniga wuxuu leeyahay waxaan gaaray meel aanan damin karin waxa aniga igu shidan ama aan dareemayo yani waxaas inaan sii wadi karin. hase yeeshee ninkan marka uu ka soo fariistay ciidanimadii dagaaladii uu soo galay wadamadii kala duwanaa uu ka soo dagaalamay ama uu tagay ama xaaladaha qaar oo adduunka lagu baahiyay oo muslim nacaybka ayaa ninkani waxay ka dhigtay inuu ahaado qof aad iyo aad u nacab muslimiinta oo xitaa marka uu arkaba si kala noqonayaba. waxa uu soo tusaaleysanayaa aniga iyo xaaskayga ayaa waxa uu leeyahay mar dukaan aan aadnay isla dukaankaygaas aan ku jiray ayaan waxaan shaada ka arkay 2 qof oo dumar ah oo muslimiin ah xijaaban waliba fuul xijaab xiran. markaas ayaa waxa uu leeyahay ninkan meesha uu marayay waaye waan la ooyay nacaybkan u qabay darteeda anigoon isla yaa ku siiyo awooda in labadan qofood inta aad u tagto qoorta aad ka jabiso. haddaba ninkan labadaasi qof waxba kuma uusan samaynin laakiin tusaale ahaan ayuu u soo qaadanayaa halka ay ka gaarsiisaneyd nacaybka uu u qabay. markaas la joogo ninkan sida uu sheegayo nacaybka mar waliba uu ku sii siyaadaya. haddaba ninkan ayaa nacaybka u qabay muslimiinta ayaa ugu dambeyn waxa uu ku fikiray in nacaybkaasi uu wax ka sameeyo. waxa uu iska dhaxarkay in waxa uu ku degayo ama uu wadankiisa uu naftiisa ugu huraayo ay noqoto in muslimiin badan ay baaba'do. waxa uu ku fikiray markaas inuu sameeyo bam gacan ku sameys ah kaasoo markaasi ugu talagalay inuu ku qarxiyo ama uu ku xiro masjid ama goob maaragtay markaasi muslimiinta ay isugu yimaadaan. qorshihiisa ninkan wuxuu ahaa ugu yaraan 200 qof inay ku dhintaan ama ay ku dhaawacmaan. ficilkan markii aan geysto oo bambadaas inta meesha aan ku xiro marka aan qarxiyo yani dadka saas ay ugu baaba'aan kadib waan ogahay uu leeyahay macnaa waan ku sii tashanayay in inta la xiro kadib anigana dil toogasho oo kale lagu xukumo ama xabsi daayin. haddana sidaas ay tahay waxa uu leeyahay nafteeda dhanba inaan u huro wadankayga oo aniga iyo dadka kale aniga ila midka ah in hawshani aan u sameeyo
way iga go'nayd. Richard oo wato hawshiisa oo ku fulin lahaa qorshahaasi ayaa waxa markaa imaanayo isbedelka xaguu ka imaanaya markaa. Wuxuu yiri maalin waxaan xusuustaa aniga iyo gabadheeda iyo xaaskeyga oo wada joogno oo waliba gabadheeda klaaska labaad meelahaasi oo kale ah ayaa waxay iiga sheekaysay uu yiri wiil ay iskuulka isla dhigtaan hooyadiisa qaabka ay u labisnayd dhardhaadheer oo ilaa ay ciribteeda oo kale ayna muuqanaynin iskaaf oo kale ama xijaab oo kale u xirnaa isla markii ninkani waa gartay uu yiri marka dee waa nacabkii taabtay uu booday. Markaas ayaan qayle cirkiis ku shareeray yiri oo gabadhii xitaa laftirkeedii aan caayay waxyaabo badan oo caruurta hortooda aan laga dhihin ayaan ku dhahay anigoo da intaasi oo dhan waxa iga keenaya markaasi ay tahay nacab. Isla markii waxaan is aaminsiiyay dhahayba iskuulkaasi bas argagixisaa timid waa la qarxi rabaa gabadhaada yartaa way dhima rabtaa. Markaas ayaa waxaan arkay yiri gabadhaydii yarayd oo igu maqan oo hadalba dheheen oo ii fiirinayso sida de inaan ahay qofka ugu waalid badan ee adduunka dul saaran. Markaas ayaa de dib isku dhigay yiri waan isweydiiyay war sidan si ma ahane waa sidee. Iftiinkana meeshas ayuu iga bilowday ayuu leeyahay Richard. Markaas ayaa waxaan go'aansaday yiri in hal fursad kale aan siiyo yani dadka communitygan ama bulshadan muslimiintu ka wada. Kadib Richard waxa uu soo galay masjidkii uu rabay inuu qarxiyo ama uu dadka ku halaago. Gudaha markii aan soo galay waxaan arkay yiri nin u muuqda khiyaar oo kabaha iska saarayo. Markaas ayaa isagoo dhal cadeynayo intuu isoo fiirshay yiri markaa ma ku caawiyaa calashan maxaan ka caawiyaa. Markaas ayaa ninkan waxaan ku dhahay yiri ha inay caawisida rabaa oo wax iga bartid islaamka. Ninkii maba iga waalin uu leeyahay markaa kutub oo wuxuu ii soo qabtay Qur'aanka Kariimka ah oo English iyo Carabi isfasirayo. Kadibna waxa uu yiri kutubkan qaado oo soo akhriso kadibna ii soo laabo. Ninkii markaa waxa uu soo qaaday kutubkii guriga ayuu la yimid wuxuu ku bilaabay akhris. Marka uu akhrinayo Richard kitaabka waxa uu akhrinayaa meel uu is yiraahdo meeshan allay leh ma mari karaan ama ma dhaafi karaan si oo de qorshihii ama dhagartii isaga waday ay ugu sii shubtay shidaal yani wax ku sii dhiirigelinayo ay u noqoto yani garaad ku haysataayo toos waad baabi'in kartaa inuu is yiraahdo. Hadaba wuxuu yiri markaa meela ii soo baxayso waan isleeyahay meeshanaad ku haysaa kaaga ma jawaabi karaan waan soo baxayaa yiri masjidkii ayaan imaanayaa ninkii ayaan weydiinayaa meeshan ii fasir yani maxay tahay. Markaas ayuu ii fasirayaa yiri si aad iyo aad u qurux badan oo anigana aan ku dego ayuu iigu sheegayaa. Ninkan sida ay saasu ahayd de waxay noqotay de in oo maasha Allah ilaah uu hanuun la doono. Tii ayaa waxay ii noqotay yiri markaa dib u toosid inaan dib wax u fahmo aan arko sida ay bulshadan tahay sida aniga aan ka aaminay waxyaabaha aniga aan haystay totally inay kala duwan yihiin. Tii ayaan iga dhigtay wiilay markaa haddii aan soo gaabsho sheekada maalintii koowaad ee aan masjidkaasi galay iyo maalinta aan qaadanayay diinta islaamka oo aan aaminayay inay u dhaxayso 8 isbuuc ama 2 bilood. Islaamkii aan la dagaalamayay islaamkii aan necbaa islaamkii aan rabi jiray aragtidaba inaan ku dilaba ayaan waxaan ka aaminay yiri runta ah inuu yahay mid nabad ah sidoo kale inuu yahay mid jacayl ah. Ugu dambeyn Richard McKenny waxa waaye qof xilliga hadda la joogo xitaa ka hadlo mararka qaar meelaha muslimiinta isku yimaadaan si uu fariintiisa ama taariikh nololeedkiisa ugu gudbiyo dadka kale si uu wacyigelin ama dhiirigelin uga dhigo dadka kale oo isaga la midka ah oo fikir kale haysto. sababtoo waxa uu qiranaya uu leeyahay inta aan ciidanka ahaa iyo kadibba de isagoo kuleyda dabcan kaga faa'iideysanayo ciidanimadiisa ama kadib inuu xitaa ciidan hore ahaa waxa uu leeyahay waxaan dhaawacay dad fara badan. inaan taas aan xusuustana way dhaawacaysaa balse ugu dambeyn isbedelkayga waan ku faraxsanahay. dhammaantiin ma maasantiin inta muuqaalkan aad daawateen insha Allah inta muuqaal kale aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabad.